ama waxyaalo badan aad ka fahamtid hadduu doono marba haddii cod la waayo hadalna ma jiro naxwaha agtiisa yacni kalaam naxwiya lama dhihi karo cod haddii la waayo waxaa baxay wax kasta oon cod lahayn laakiin wax ku fahamsiinayo oo bini aadamku wax isku fahamsiiyo waxaa baxay al-ishaara ishaarada ishaaraa baxay ishaara maxay tahay macnaheeda waa wax af soomaali aan u naqaano af soomaaligan maxaa lagu yidhaha baaqa waxaa laysku baaqay soo maha laakiin qofkii ma hadlin waxbuu kuu baaqay wuu kuu baaqay mana hadlin soo ma jiro qofka isagoon kula hadlin haddana wax ku fahamsiinayo wuxuu kaaga baaqi karaa isha ishuu kaala hadli karaa isagoona wax coda ku siin markaasuu isha wax kaa fahamsiin karaa qofka waa la yaqaanaa soo maha gacantuu wax kaa fahamsiin karaa isagoon hadlin qofka gacantuu wax kaa fahamsiin karaa isagoon hadlin madaxuu wax kaa fahamsiin karaa isagoon hadlin war waxaasi run miyaa qofka hadduu ku yidhaha madaxa u ruxday madax haddaa ruxday maxaa laga faa'idaystay yani haa ayaad ka faa'idaystay laakiin qofkii ma hadlin waxaasoo dhan falaysa bikalaamin cinda الnaxwiyiin waxaasoo dhan hadal ma ah naxwaha agtiisa naxwaha agtiisa hadal ma ah naxwaha waxaa shardi ah cod in la helo laakiin waxyaalaha baaq oo layskugu baaqbaaqayo isha ama madaxa ama gacanta ama waxyaalaha laysugu baaqayo dhan hadal ma ah laakiin markii la joogo istilaaxaad kale markii la joogo naxwaha laga tago waa jiraa istilaaxaad kale oo hadal inay u yaqaanaan waxaas laakiin naxwaha maya naxwaha wuxuu shardinaa cod in la helo cod in la helo laakiin dadka caadiga fahamka dadka waxay u yaqaanaan waxaasoo kale hadal markii naxwaha laga soo tago oo waxaa la yidhaha lugaة اljasad waa codka jirku waa hadlaa waxbuu fahamsiiyaa dadka isagoon carabku hadlin ishiia hadlaysa gacantaa hadlaysa madaxaa hadlaya isagoo carabka uusan dhaqdhaqaaqin marka waxaa la yidhaha lugaة اljasad qoladan kale waxay ku magacaabaan body language maxaa waaye waa jirka hadalkiis qofkan carabiyuu kugula hadlaa adigana soomaaliya tahay waxaa laga yaabaa wax badan inaad iska dhacdhacsiisiin ood isfahamsiisiin mana isla hadlin wax badana haddana waa kala bogan kartaan maxay tahay luqatuljasadkii waa jirkaa laga wada hadli waxbaa la isku ishaaray waa luqada dhagoolayaasha ay isticmaalaan soo maaha luqada dhagooluhu isticmaal dhagooluhu maanta o dhan waa hadli maanta o dhan waxbuu ku fahamsiinaaho soo ma arkin idaacadahaasoo kuma arkin qolooyin tv-ga marka uu ninku warka jeedinayo ninaa faraha taagtaagaya maanta o dhan ninkaas aad ay dhagoolayaasha u fahmaayeen waxbuu fahamsiinaya lakiin ma hadlayo soo maha waxaasoo kale kalaam miyaa naxwaha agtiisa ya kalaam maaha kalaamku yani shardiga ugu horeeya muxuu yahay ya allafdu waa in la helo wixii ka soo haray oo dhan kalaam naxwaha agtiisa laguma yihaaho waxaa kaloo ku baxaya alkhad qoraalka waxbaad qortay laakiin wixii kuma hadlin kalaam ma aha hadal ma ah naxwaha agtiisa hadal uma yaqaano waxaa maanta o dhan waxbaad qortay hadda casharka waxbaad qoranaysaan soo maha tacriifaadka iyo waxyaalaha la jeedinayo shuruudaha iyo waad qoranaysiin hadda qof walba waxbuu qoray waxaa qoran falaysa bikalaam cinda الnaxwiyiin waxa aad qortay ilaa kuma dhawaaqin mogta haddaad ku dhawaaqdo markaasaa la leeyahy waa kalaam intaadan ku dhawaaqin laakiin ma aha kalaam khadkaas oo meesha ku qoran kalaam ma aha maca dalika waxbuu ku fahamsiina waxaa kaloo baxay annusab nusab waxa loo yaqaan maxay tahay waa astaamaha loogu tala galay in bini aadamka ay wax ku fahmaan haddana aan cod ka lahayn nusab maxay tahay waa astaamaha loogu tala galay bini aadamka in wax lagu fahamsiiyo codna aan lahayn waxaa laga yaabaa adigoo gaari wata meel zaxmo ah oo cidhiiri ama isgoysa inuu gaarigaagu ku yimaado
magaalada hadda xilligii hore waa lahaan jirtay oo dowladdii dhexe ay jiri jirtay samaa faraa la dhihi jiray wuxuu kuu soo shidaa khad axmar ah nal yacni guduuduu kuu soo shidi dhinjaruu soo shidaa nal dhinjar macnuhu maxay tahay joogsow joogsoa loola jeedo waxaasi waxbay ku fahamsiiyeen ma kula hadlin falaysa bikalaam falaysa bikalaam masjidkan markii aad soo gashid mixraabka markaad fiirisid mixraabkii waxbuu ku fahamsiiyey laakiin kulama hadlin mixraabkii muxuu ku fahamsiiyey qibladu inay jirto dhinacaas inay qibladu jirto oo qofku markuu masjidkan soo galo xaggana u tukan maayo xaggana u tukan maayo wuxuu u tukanaa meesha mixraabka jihadiisa marka maxaa la yidhaha waxyaalahaas oo dhan nusab waa astaamo bini aadamka wax lagu fahamsiiyo laakiin cod aan lahayn isaguna waxaa isagana kalaam ah maxaa waxaa laga waayey shardigii allafdu shardigaasaa laga waayo waxaa kaloo baxaya alcaqdu biاlasaabic haddii faraha haddii xisaab wax laga xisaabiyo shaygan imisaad iibin uu qofku yidhi labadaada faroodaa sidaa u taagtay lama hadlin ama saddex faroodaa sidaa ugu taagtay faraha aad taagtay falaysa bikalaamin cinda الnaxwiyiin falaysa bikalaamin cinda الnaxwiyiin marka waxay dhahaan adduwaalu اlarbaca lafdi la yidhi maxaa baxay adduwaalu اlarbaca afarta wax faa'iidaysa laakiin aan cod lahayn maxay tahay alkhadu alishaara annusab alcaqdu bilasaabic waa afarta wax faa'iidaysa oo bini aadamka wax u faa'iidaysa laakiin cod aan lahayn kuwaasoo dhan waxaa weeye ma ahan kalaam cinda الnaxwiyiin kalaam ma ahan cinda الnaxwiyiin naxwoley agtooda kalaam ma aha liannahu naxwaha wuxuu shardinaa kalaam huwa lafdu waa in cod la helo kuleeyahay isagu cod in la helo waa shardi naxwoleyda qaarkood waxay ku daraan lisaan اlxaal oo duwaashay waxay ka dhigaan adduwaal اlkhamsay dhahaan lisaan اlxaal lisaan اlxaal maxaa weeye xaaladda ayaa kula hadlaysa iyadoona cod la bixin tusaale ahaan qof faqiir ah oo dhar wanaagsan iyo dhogor wanaagsan aan lahayn ayaa jamaacadii markii ay salaaddii ka baxday uu halkaa istaagay wuu soo jeestay waana iska aamuso waxba ma su-aala salaaddii jamaacada markii laga baxay kabacdi hadduu jamaacadii ka soo hor jeestay xataa hadduu aamuso lisaanulxaal weeye waxbuu na fahamsiiyey ninkaas xaaladdiisa markaan qiimayno xaaladdiisa waxayna leedahay waxa lay siiyo markaan xaaladdiisa fiirino laakiin ma hadlaayo hadduusan hadlin xataa waxba u ka fahamsiiyey marka waxay ku soo daraan duwaasha ayay shan uga dhigaan naxwoleyda qaarkood laakiin sida mashhuurka ah oo caanka ah adduwaalu اlarbaca afarta wax tusisa ayaa ku baxay allafdu oo waxaasoo dhan lama dhihi karo alkalaamu الnaxwi lama dhihi karo shardiga labaad oo kalaamka naxwiga loo shardinayo lafdigaasoo almurakabu laysu geeyey min kelimatayni faakara laba eray iyo wax ka badan lafdi laysaga geeyey waa inuu codku haddana noqdo markii cod la helo kabacdi haddana waxaa shardi ah codku inuu noqdo laba eray iyo wax ka sii badan haddii aad hadashid oo cod aad la timaadid laakiin codkaasi hal eray uu kaa noqdo oo tusaale ahaan waxaad tidhi masjid masjid hal eray miya mise waa labo hal eray waay soo maa falaysa bikalaam kalaan ma aha weligaa masjid 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 ku qayli kalaan ma aha limaada waxaa laga waayey almurakab min kelimatayni fa akthar laba eray iyo wax ka badan waa in laysaga geeyo almurakab laysaga geeyey min kelimatayn fa akthar laba eray iyo wax ka badan waa inuu murakab ku yahay ayib almurakab min kelimatayn fa akthar haddii murakabkaas tusaale ahaan waa in la helo oo la yidhaaho annaxwu naafic naxwuhu wuxuu leeyahay nafci waxbuu anfacaa sax markaasaa kalaam ah maxaa yeeley waa cod waa la helay
laba erayna waa la helay haddaad ka sii badiso alxamdu lilah khayraad sii siyaadisay laakiin ugu yaraan naxwuhu asaaska ugu horeeya waa laba eray hadduu 3 4 5 6 boqol malaayiin eray gaaro waa zidta khayran khayraad sii siyaadisay laakiin maxaa la rabaa asaaska in la helo laba kelimo laba eray waa in la helo almurakab maa tarakaba min kelimatayn faakthara shardiga saddexaad murakabkaas dee anwaacuu leeyahay dowrka dambe haddii ilaahay cumri nagu gaarsiiyo ayaan sheegi doonaa المركب الإسنادي المركب العددي المركب المزجي المركب التوصيفي قواعد كان ku qaadan doonaa laakiin hadda waxaan isaga gaabsanaynaa u fahmaynaa المركب ما تركب من كلمتين فأكثر murakabkaasoo haddana المفيد ee wax faa'iideeya dee laba eray iyo cod iyo kaliya lama rabee waxaad ku hadlaysa codkaaga iyo murakabka hadalka aad isu geysay waa inuu faa'iido na tusiyo iska hadal ma aha faa'iido wax la fahmi karo oo faa'iido ah faa'ida yaxsunu الsukuutu calayha faa'idatan yaxsunu الsukuutu calayha faa'ido lagu aamusi karo lagu qanci karo oo qofkii ku hadlay iyo kii dhegaysanayey labaduba ay dhihi karaan nacam waa hadal dhammaystiran alla ilahay faa'ido dhammaystiran way dhihi karaan waa inuu faa'iideeyo murakabkaaga iyo hadalka aad ku hadashay maxaa baxay marka oo la diidan yahay wax aan waxbaba laga faa'iidaysan wa in qallat faa'iidadu haba yaraatee wax macno ah waxaan lahayn haddaad ku hadasho مثلا waxaa tidhi ramacu ayaa tihi ramacu waa maqluub cumar cumar gadaal gadaal u soo akri cumar cumaru rumacu soo noqon mayso rumacu haddii rumacu maxay faa'iido leedahay waad iska hadashay un carabi aad dabagedisay macno yeelan maayo rumacu ama waxaa tidhi days waa maqluub zayd zaydoo gadaal gadaal aad u soo akhrisay wuxuu noqday days dee days muxuu macnaahu leeyahy rumacu muxuu macnaahu leeyahy rumacu ama lujuru ayaa tiri lujura rajul rajul aad dabagedisay rajul rajulu lujura aad tiri lujura lujura maxay tahay wax faa'iida wax macnaa ma laha erayada marka noocaas oo kalea wax macno aan lahayn falaysa bikalaam maxaa shardi ah almufiid meesha waa in codkaagu faa'ido leeyahay waxaa kaloo baxay hadduu faa'ido leeyahay xataa laakiin faa'idadii aysan dhammaystirnayn oo aysan ahayn faa'ida yaxsunu sukuutu calayha faa'ido lagu aamusi karo lagu qanci karo haddaysan ahaynna falaysa bikalaam kalaam ma ah tusaale ahaan waxaa tidhi in xadartu darsa alyowma maanta haddaan casharka soo xaadiro jamaacadana ka dhex istaagtay jamaacadan ayaad ka dhex istaagtay markaas waxaad tidhi in xadartu alyowma darsa maanta casharka haddaan soo xaadiro waana iska fadhiisatay dadkii indhahay taagtaagayaan soo maa bismi illah war ninku muxuu sheegaa lagu leeyahy muu hadalka dhammaystiro soo maaha qof kastoo caqli leh naxwaha u fiirsada caqligaaga furfur caqligaaga haddaad ka shaqaysiisood furfurto naxwuhu waa caqli laysu geeyey caqli laysu geeyey caqligaaga furfur qalbigaagana soo xaadiri inta casharka la akhrinayo yaanaan bakaaro qalbiga u safrinin iyo guryihii iyo meelihii maaragtaahay deegaanadii iyo laga yimid iyo qalbiga yaanaan xagga geynin qalbiga aan soo xaadirino waa basiid cilmigana aad u fudud yahay laakiin qalbi xaadir ah iyo caqli furfuran aan la nimaadno dayib marka in xadartu haddaan xaadiro in xadartu alyowma addars in xadartu darsa alyowm maanta casharka haddaan soo xaadiro waana iska fadhiista qofka
dee qofkaas qof walba oo dhegaysataa indhuhu u taagi wuxuu leeyahay war muu hadalka dhammaystiro. idan marka ma hayno faa'idatan yaxsunu sukuuta calayha. haddii marka boqolaal eray aad ku hadashid laakiin wixii faa'iido lagu qanci karo aysan dhalin falaysa bikalaam, isaguna kalaam naxwiya ma ah. kalaam naxwi ah isaguna ma ah. boqolaal maantoo dhan hadal zaydun camrun bakrun khaalidun hindun muslimaatun mu'minaat qaanitaat masjidun dariiqun qalamun qofa yidhi meeqa eray hadda ku dhawaaqo waana iska fariistay intaas markaa yidhi waxaasoo dhan falaysa bikalaam. weligaa hadalka badid, weligaa malaayiin eray ku hadal, keliya waxaa ku haysta uun almufiid faa'ida yaxsunu sukuuta calayha. faa'ido lagu aamusi karo lagu qanci karo waa inaad ku hadashid. laakiin waxaa jirta laba eray oo lagu qanci karo oo faa'iido leh. maalan waxaa tidhi jaaءa zaydun, zaydaa yimid. xadara alustaadu, sheekhiyaa soo yimid. laba erayuu ku dhawaaqay, faa'iidadiina waa dhammaystiranta. meesha mixwarka laga fiirinayo waxaa weeye faa'iida lagu aamusi karo waa inuu hadalkaagu yeesho. almufiid faa'iideeya faa'idatan yaxsunu sukuuta calayha bilwadci ku faa'iideeya, ay bilqasdi, qasad iyo ulajeedo waa inaad u hadashid. ulajeedo waa inaad u hadashid. maxaa baxay haddaad iska hadashid laakiin wax ulajeedo ah aadan hadalkii ka lahayn falaysa bikalaam naxwi. kalaam naxwiya ma aha kaas isagana. maxaa baxay qofkii iska hurdayey kalaamu naa'ib wasaahi. qofkii iska hurdayey, dad hurdayaa jira soo maaha oo iska qarwo oo iska hadhadlay. dadkaa qarowga intay hurdayaan waxay leeyihiin oo dhan maanta oo dhan faa'iidaha yeesha hadduu doono. falaysa bikalaam, hadal ma aha naxwaha agtiisa. leannu naxwaha muxuu shardi ah in qofku uu u qasdo waxa uu leeyahay waa inuu niyo iyo qasad uu ku yidhaaho, taasaa shardi ah. marka maxaan ogaanay alkalaam mujtamacat fiihi quyuudun arbaca, afar qodob wixii ay ku kulmeen. kow allafdu, labo almurakab, saddex almufiid, afar bilwadci oo qasad loola jeedo. afartaas wixii ay ku kulmeen ayaan waxaan dhihi karnaa haadaa kalaamu naxwiyu. kan waa hadal naxwaysan oo dhammaystiran. naxwaha wey waxaan markaan ka hadlayno. isdilaaxaadka waa badan yihiin. hadda markii la joogo fiqhiga ama axkaamta markii la joogo, fiqhiga wuxuu yidhaha qofku hadduu salaada ku dhex hadlo salaaddii waa ka burtay ayaa la leeyahay. haddii hadalka intee waayo hadalka cabirkiisa salaadda ku buraysa? laba xaraf oo xataa wax faa'iida aan lahayn haddaad salaaddii dhexdeeda ku akhriso bes adigoo salaaddii ku dhex jiraa waxaad tidhi ja-ra, jim iyo rabis, ja-ra, waa kaa burtay salaaddii. oo maxay tahay hadalkaygu misaa wax faa'iideeyaba ja-ra bisaa yidhi, weligaa yuusan faa'iidey. laba xaraf bis. marka haddii fiqhiga la joogo way ka duwan tahay. fiqhiga laba xaraf xataa yaysan faa'iido yeelan waa kalaam, salaaddana waa ku buri. laakiin naxwaha markii la joogo shuruudan afarta ah ayaa naxwuhu kalaam u yaqaanaa: allafdu, almurakab, almufiid bilwadci. idan marka afartaa shardi wax kulansaday ayaan mihaalinaynaa waana icraabaynaa. waxaad rabto ku mihaali, laakiin mid un baan ka soo qaadanaynaa. xadara alustaad, sheekhiyaa yimid. xadara alustaadu, sheekhiyaa yimid. jaaءa zaydun, zaydaa yimid. nazla almadaru, roobkiyaa soo degay. cama annafcu, nafcigiyaa dadkii kala gaaray. waxaad doonto shuruuddan wax uun lahaa laga dooni mar walbaba. xadara alustaadu, sheekhiyaa yimid. marka waan icraabayna. xadara alustaad ka fiiri afartii shardi. horta dhawaq wuu yahay lafdi waan ku hadalnay. murakabna wuu yahay oo laba eray wey, waa xadara iyo alustaad. mufiid wuu yahay oo waa faa'iide lagu qanci karo. bilwadci ay bilqasdina wuu yahayo dee qofku qasada u yiri. xadara alustaad. icraab, icraabka macnihiisa waxaa weeye waa bimacnaa atawdiix
walbayaan carabigan aad ku hadashay ii caddee wixii ficila wixii xarafa wixii isim ah wixii godan wixii hoos dhigan wixii kor dhigan ii caddeew ii qeexow marka waxaan leenahay xadara ficil maadi mabniyu calى اlfatxi laa maxala lahu min alicraab alustaadu faacilu xadara marfuucu wa calaamatu rafcihi damaة ظaahiraة fii aakhirih icraabka sidii qur'aan isaga akhri keliya lama rabo waxaa la isku daydaa inaad fahamtid ulajeeddada icraabka ka dambaysa xadara hadda waxaan idhi waa ficil maadi ficil maadi maxaa loola jeedaa waa dhacdo hore u dhacdayaa loola jeedaa wax hore u dhacay xadara alustaad sheekhii mar horuu soo xaadiray mar horuu yimid waa iman doonaa lama dhihin mar horuu yimid ficil maadi macnaheeda waa sidaas waa wax hore u dhacayaa loola jeedaa ficil maadi mabniyun calى اlfatxi maxaa loola jeedaa ficilka maadiga ah ayaa mar walbaba aakhirkiisa la kor dhigaa mabniyuna waxaa loola jeedaa waa shaqal caamil bedbedeli kara oo ku shaqayn kara ficilka maadiga uusan jirin waxa isaga gala oo ku shaqeeya oo marna hoos dhiga ficilka maadiga marna goda marna kor dhiga ma jiro laguma shaqeeyo mabniyun calى اlfatxi waxaa lagu bineeyey kordhigaasuu taagan yahay weligiis kordhigaas ayuu weligiis taagan yahay ereyada carabiga waa noo iman doonaane qaarna waa mucrabo waa la icraabaa oo wax mar walbaba bixasabi alcaamil aakhirkiisa aad ka dareemayso in la bedbedeli karo de maalan ereyga alustaad waa wax la bedbedeli karo mar walbaba wixii hore ka gala ayaa bedeli kara ba haddaan hore ka gelino marartu bilustaadi wuu hoos dhigan yahay ficil haddii hore laga geliyo ficilkaasaa godayo waxaa leeyahay xadara alustaad haddii ficil mafcuulu bihi qaadanayo hore uu ka gado waa la kor dhigiyo waxaa leeyahay ra'aytu اlustaada waxa saas caamilku u bedbedeli karo mucrabaa la yidhah waa la icraab mucrab ficilka maadiga marka xarakadaas iskama bedelo kordhiga ah xadara ficil maadi mabniyun calى اlfatxi laa maxala lahu min alicraab laa maxala lahu min alicraab maxay tahay icraab u qarsoon ma jiro midkan ka muuqda bis kordhigan qaybo waxaa jira laleeyahay mabniyun calىa kada fii maxali rafcin maxalka hoosena goda xooga uga qarsan laleeyahay kan wax u qarsan ma lah jaa ficil maadi mabniyun calى اlfatxi laa maxala lahu min alicraab xadara ficil maadi mabniyun calى اlfatxi laa maxala lahu min alicraab alustaadu faacilu xadara faacil maxaa loola jeedaa waa qofkii wax sameeyey ustaadku waa qofkii soo xaadiray oo ficilka sameeyey xuduurku waa ficilkii ustaadkuna waa qofkii sameeyey ficilka soo xaadirid alustaadu faacilu xadara marfuuc faacilna waxaad ogaataa weligii waa godan yahay marfuucaadku noogu iman doonaa faacil laasim in la godo faacil hoos dhigan ma jiro faacil kor dhigan ma jiro faacil daa'iman waa marfuuc alustaadu faacilu xadara marfuucun waa la goday marfuuc macnihiisu uu godan yahay wa calaamatu rafcihi calaamadda lagu godana damatun daahiraة fii aakhirih waa godka aakhirka ka sii muuqda alustaadu xadara ficil maadi mabniyu calى اlfatxi laa maxala lahu min alicraab alustaadu faacilu xadara marfuucu wa calaamatu rafcihi damatun daahiraة fii aakhirih wa aqsaamuhu ثalaaثaة ism wa ficlu wa xarfu jaءa limacnan wa aqsaamuhu aqsaamu اlkalaami kalaamka naxwiga ah qaybihiisa uu u qeybsamo ثalaaثaة waa saddex kalaamkii maadaama shuruuddiisii aan ogaanay haddana waxaanu ogaanaynaa inta qaybood oo kalaamka naxwiga ah ee carabiga ah intuu usii qeybsamo carabiga meel kasta kalaamulcarabi meel kasta uu ku jiro qur'aanka hadduu ku jiro xadiiska hadduu ku jiro gabayada carabta hadduu ku jiro
kitaabkeenana haddana hor yaalay ajruumiyada waxa ku qoran oo dhan saddexdaas kama bixi karaan. waa la raadiyey luga alcarabiya mid afaraad waa la soo waayey, waa lagu daalay. saddexdaas bis ismun wa ficlun wa xarfun, ism iyo ficil iyo xaraf. xarafkaasoo jaa'a huwa xarafku la yimid limacnan macno la yimid. saddexdaasu kalaamka carabiga u qaybsamaa. kalaamka carabiga qur'aanka dhan 114ka suuradood ee qur'aanku uu ka kooban yahay kulli saddexdaana u qaybsamayaan. waxaa ku jira qur'aanka ism ficil xaraf, wax kale maba jiraan. xadiiska sidaas oo kale, ashcaaru lcarab sidaas oo kale, waxa carabi qoran oo dhan saddexdaas. marka ism maxaa loola jeedaa? maa huwa اlismu? ism muxuu yahay? marka hore waa tacriifinaynaa. saddexda mid walba ka mida tacriifaan u samaynaynaa, waan qeexaynaa, waan caddaynaynaa. ka bacdina sheekhaaba wuxuu u samayn doonaa calaamaad mid walba lagu garan karo. ism maxaa uu yahay haddii lagu yidhaaho kelimatun dallat calىa macnan fii nafsihaa walam taqtarin biaxadi اlasminati الثalaaثة. kelimatun dallat calىa macnan fii nafsihaa. isimka waxaa la yidhaha waa erey kasta oo macno asaga nafsadiisa kugu tusiya, macnuu kuu faa'iideeya. hadda tusaale ahaan markaan idhaaho masjidkan aan ka soo qaadno aan ku jirno masjid, ereyga masjid wuxuuna tusinaa macno. macnahaas oo ah makaanu الsujuudi والsalaaة, meel ilaahay lagu caabudo oo ilaahay loogu sujuudo oo ilaahay loogu tukado. masjid markii la yidhaha qofku saas u fahmi, macnuu ku tusiyey. walam taqtarin biaxadi اlasminati الثalaaثة, saddexda zaman mid ka midana aan la xiriirsan oo aan faa'iideyneyn. saddexda zaman maxaa loola jeedaa? wakti hore u tegey oo maadi ah, wakti xaalahoo hadda la joogo, wakti soo socdaoo mustaqbal ah. saddexdaas midna ma faa'iideeyo isimka, midna ma faa'iideeyo. kelimatun dallat calىa macnan fii nafsiha walam taqtarin biaxadi اlasminati الثalaaثة. waa kelimo kastaoo macno ku tusisa, saddexda yacni wakti mid ka midana aan ku tusinaynin. maala markaan masjid ka soo qaadno, masjidka macnahan ka fahmnay waxaa weeye meel lagu tukado oo lagu sujuudo. laakiin ereyga masjid mana tusinayo zaman, shaqo kuma laha. masjid horay u dhisnaa, mid hadda ka bacdi la dhisi doono oo mustaqbalka masjid noqon doona, mid hadda saacaddan masjid ah, wakhtiyadaa isagu shaqo kuma laha, ereygu ku tusin maayo. qaraa-in kale iyo calaamaad kale ayaa ku tusinaya masjid hore u dhisnaa ama hadda ka bacdi la dhisi doono ama hadda dhisan. waxyaalo kalea ku tusin kara qaraa-in kale, laakiin ereyga daatadiisa ku tusin maayo. mana loo wadcin, loomana dejin, loogumana talagelin. magac kasta ism waa sidaas. markaan idhaaho maxmuud, magacan la yidhah maxmuud, shaksiga maxmuud la yidhah, maxmuud wuxuuna tusinaa daatadii iyo shaksi magacan lagu magacaabay, laakiinna tusin maayo maxmuud hadda jooga, mid horay u jiri jiray, maxmuud hadda ka hor jiri jiray, maxmuud hadda ka bacdi dhalan doona. wakti shaqo kuma laha isagu isimka. kaasa waxaa la yidhaha ism kelimatun dallat calىa macnan fii nafsiha walam taqtarin biaxadi اlasminati الثalaaثة. wa ficlun, ficilna maxaa la yidhaha kelimatun dallat calىa macnan fii nafsiha. intaas waa iska leeyihiin isimka iyo ficilka, intaas waa iska waafaqsan yihin, lakin maxay ku kala duwan yihiin? ficilka wuxuu isagu uga duwan yahay isimka wاqtaranat biaxadi اlasminati الثalaaثة. ficilku ficil ma noqon karo, lagumana tilmaami karo ficil ilaa saddexda zaman mid ka mida uu ka faa'iideeyo. saddexda zaman maxay tahay? zaman maadi
mustaqbal iyo xaal zaman hore u tegey mid xaal oo hadda la joogo iyo mid mustaqbal ee hadda kabacdi iman doona waa inay saddexdaa zaman mid ka mid ah waa inuu ku tusiyo hadduu ficil yahay tusaale ahaan markaad tidhaaho jaaءa zaydun zaydaa yimid ereyga jaaءa muxuu ku tusinaa zayd imaatin oo horay u dhacay mar hore inuu ninkaas yimid zaman maadi haddaan nidhaaho sayajiiءu almaطru sayajiiءu almaطru roobaa iman doona roobaa iman doona muxuu ku tusinaa ereyga sayajiiءu zaman mustaqbal oo hadda aan la gaarin haddaad tidhaahid yanzilu almaطru roobaa hadda soo degaya roogaa degaya ama yansabu waxaa shubmaya hadda almaطru yansabu almaطru roobaa hadda shubmaya muxuu ku tusinaa wakti hadda la joogo oo xaalo ah wakti xaalaha hadda la joogo yansabu almaطr roobaa hadda shubmaya maxaa yaele ficilka mudaarica xaalna wuu ku tusiyaa mustaqbalna waa tusiyaa labada waktiba mudaarica idan marka ereyga ficil lama dhigi karo ilaa saddexda wakti mid ka mida uu kuu faa'iideeyo kelimaة dalat calىa macna fii nafsiha واqtaranat بأxadi الأزminaةi الثaلaaثة xarafka kelimaة dalat calىa macna fii gayriha fii nafsihaadii waad bedeli marka kelimaة dalat calىa macna fii gayriha xarafku isaguna waa erey macno ku tusiya macnaha laakiin isaga nafsadiisa kuguma tusiye fii gayriha wax kale u baahan yahay in lala xiriiriyo markaasuu macno faa'iideeya wax kale in lala xiriiriyo u baahan yahay hadda markii aan idhaaho xarafkan min xarafka la yidhaha min xarafkaa min macnee haddii lagu yidhaaho wax macnaa ma lahan ad leedahay si loo macneeyo lama yaqaano laakiin markii aan wax kale la xiriirino oo nidhaaho kharajtu min albeyti guriga xaggiisa ayaan ka soo baxay ereygii min macnuu faa'iideeyey oo wuxuu naga faa'iideeyey ibtidaa'u اlkhuruuj min albeyt socodkaagu inuu ka soo bilowday guriga oo guriga aad ka timid socodkan hadda annaga aad noo timid in guriga uu ka soo bilowday ibtidaa'iya ibtidaa'iya ereygan sidaas oo kale hal waa xaraf laakiin markii ereygan hal keligii meesha uu taagan yahay wax macnaa noo faa'iideyn maayo haddii aanan la xiriirin ficil ama isim laakiin markaan nidhaaho hal kharaja الrajulu ninkii ma baxay hal kharaja الrajulu ninkii ma baxay muxuu noo faa'iideeyey istifhaam su-aaluu noo faa'iideeyey su-aal uu noo faa'iideeyey marka xarafku markii wax kale loo geeyo uu faa'iido dhalaa laakiin ficilka uma baahno wax kale in loo geeyo isimkuna uma baahno wax kale in loo geeyo iyagaa labadoodu macno dhalinaya iyadoon wax kale lagu lamaanin xarafkuse wuxuu u baahan yahay in wax lagu lamaaniyo wa xarfun way xarafkaasoo jaaءa limacnan liأjli macnan macno dartiis la yimid ayb marka waxaan misaalinaynaa on qaadanaynaa isim iyo ficil iyo xaraf saddexdaas wax misaal kulansanay ilaa waxaan idhi qaybaha kalaamku waa isim ficil xaraf saddexdaas u qaybsamaa kalaamulcarabi guud ahaanba saddexdaas wax kulansaday waxaa la mida lan usaaxiba alkaslaana lan usaaxiba anigu saaxiib la noqon maayo alkaslaana wehsilow qof wehsada anigu oo cibaadada iyo waxbarashada ka wehsada
saaxiibtinimada waan ka goosana lan usaaxiba alkaslaana qof wehsanaya saaxiib la noqon maayo markaan fiirino hadalkaasi wuxuu ka kooban yahay saddexdii hadda aanu sheegaynay ism ficil xaraf lan maxay tahay waa xaraf usaaxiba waa ficil alkaslaana waa ism markaad ku fiiriso ku tadbiiqiso tacriifkii mid walba aan u sheegnay waa ku rumoobi lan ka bilow waa kelimaة dalat calىa macnى fii gayriha walam taqtarin biaxadi اlأزminaةi الثalaaثة xarafka kelimaة dalat calىa macnى fii gayriha maxaa le lan keligeed markii meel la dhigo macno faa'ideyn mayso walam taqtarin biaxadi اlأزminaةi الثalaaثة zamanna ma tusiyo xarafka markaanu fiirino usaaxiba waa ficil maxaan ku fahmnay macnuuna tusinaa zamanna waana tusinaa oo zamanku muxuu yahay zaman mustaqbala iyo haddeer labadaba wuu faa'iideyn karaa ficilka mudaarica zamanka mustaqbalka anigu la saaxiibi maayo nin wehsilow ah haddeerna la saaxiibi maayo xaalana wuu ku tusin karaa mustaqbalna wuu faa'iideyn karaa alkaslaan waa ism maxaa yeele macnuu ku tusinaa isaguna wehsi macnaha wuxuu ku tusinaa wehsi zamanna shaqo kuma laha kelimaة dalat calىa macna nafsiha walam taqtarin biaxadi اlأزminaةi الثalaaثة ayb miثaal kasta wuxuu u baahan yahay inaan icraabno lan xarfu nafyin wa nasbin wa اstiqbaalin wa اkhtisaasin bilmudaaric intaas oo dhan iyadaa qaadanaysa lan keligeed ogow hadde wax kale ma aha lanta macnaheediaan sii fasiraynaa un iyo waxay faa'iideyso icraabku wax kale ma aha lan maxaan idhi waa xarfu nafyi xarfu nafyi macnaheedu maxay tahay waa xaraf noo faa'iideynaya diidmo lan u saaxiiba ma la saaxiib diidmada xaggee ka fahmnay soo lanta maaha wax faa'iideynaya xarfu nafyi waxaa weye waa xaraf diidmo faa'iideynaya lan xarfu nafyin wa nasbin maxaa loola jeedaa mudaarica hadduu galo ficilka hadduu galo mudaarica wuu kordhigaa ayaa loola jeedaa lan yanaala اllaha luxuumuhaa walaa dimaa'uha lan yanaala ficilkaas maxaa kordhigay lantanaa kordhigaysa meeshuu galo waa un kordhig lan xarfu nafyin wa nasbin wa nasbin waxaa loola jeedaa waxbuu kordhigaa waistiqbaal maxaa loola jeedaa ficilka hadduu galo mudaarica mustaqbal bisuu noqdaa lanta haddii laga bixiyo usaaxib mustaqbalna wuu noqon karaa xaalna wuu noqon karaa laakiin lan hadday gashay waa mustaqbalka lama saaxiibayo qof wehsiilow lan xarfu nafyin wa nasbin wa istiqbaalin istiqbaal maxaa weeye zaman mustaqbalay faa'iideysa waa mudaarica ayaa faa'iideynaya ilaa xarafka waxaan nidhi isagu wax ma faa'iideeye mudaarica zamankii ku dhex jiray ayuu wuxuu u barax tiraa inuu mustaqbal bis faa'iideeyo mudaarican lanta saa u wareejinaysa iyadu lantu ma aha inay zamanku tusinayso maxaa yeeley tacriifka waxaa noogu jira xarafka walam taqtarin biaxadi اlأزminaةi الثalaaثة laakiin mudaarica ayay waxay u barax tirtaa inuu faa'iideeyo mustaqbal bis waa macnihii mudaarici sii dhalaaline sii caddayne inuu mustaqbal yahay ku tusinay lan xarfu nafyin wa nasbin wa istiqbaalin wa اkhtisaasin bilmudaaric waاkhtisaas bilmudaaric maxaa loola jeedaa mudaarica khawaastiisay ka mid tahay ficilka maadiga ma gasho ficilka amarkana ma gasho waxaad icraabayso faham icraabka ha iska tixin lan xarfu nafyin wa nasbin wa istiqbaalin wa اkhtisaasin bilmudaaric usaaxiba ficil mudaaric mansuubun bilan waa ficil mudaaric waxaa kor dhigay lan ayaa loola jeeda wa calaamatu nasbi calaamadda lagu kordhigana fadxatu daahiraة fii aakhirihi waa kordhiga aakhirkiisa ka muuqda ficil kasta wuxuu kaaga baahan yahay faacil yaa waayo qofka saaxiibtinimada diidaya lan u saaxiiba aniga wa faaciluhu damiiru mustatiru wujuuba taqdiiruhu ana faacilka diidaya saaxiibtinimada aniga wa faaciluhu damiir mustatir faacilkiisu waa damiir qarsoon faacilkii banaanka ma yaallo
uu qarsoon yahay faacilkii ficilkan mudaarica haddaan soo qadarno faacilka aan bannaanka soo dhignana wuxuu noqonaa ana wa faaciluhu damiiru mustatiru wujuuba taqdiiruhu ana wujuuban maxaa loola jeedaa waa waajib waay in la qariyo antaas ana in la qariyo waa waajib maxaa yeelay way noo iman doontaahe mudaarica haddii lagu bilaabo hamzo xarafka hamza hadduu ugu horey sida saaxiba ama lagu bilaabo nuun ama lagu bilaabo taa saddexda haddii lagu bilaabo faacilka waa waajib in la qariyo faacilka waa waajib mudaaric haddii lagu bilaabo hamzo taa nuun waa noo iman doonaan iyagoo faahfaahsan usaaxiba ficlu mudaaricu mansuub bilan wcalaamaةu nasbihi fatxaة ظaahiraة fي aakhirihi wafaaciluhu damiiru mustatir wujuba taqdiiruhu ana alkaslaana ayaa noo soo hartay mafcuulu bihi mafcuulu bihi maxay tahay mafcuulu bihi waxaa la yidhaha wixii asaga wax lagu sameeyey faacilna waxaa la yidhaha kii wax sameeyey mafcuulu bihi kii wax lagu sameeyey haddaad tidhaahay darabtu zaydan zayd waan garaacay zayd muxuu noqonaa mafcuulu bihi maxaa isagaad garaacday lan usaaxiba alkaslaana qof wehsilo waa la saaxiibi maayo cadamu lmusaaxabadu meesha ay ku dhacayso saaxiib la-aantu qofka ay ku dhacaysay ayaan daradaas waa qofkee kaslaanka inaan lala saaxiibin oo la gooyey qofka ay ku dhacayso waa kaslaanka alkaslaan marka muxuu noqonaa mafcuulu bihi qofkii wax lagu samaynayey oo la goynayey oo la nacayey mafcuulu bihina waa mansuub weligaa mafcuulu bihi haddii icraabka ku maqashid mansuub waa isku xigaan faacil iyo marfuucna waa isku xigaan la faacil weligi waa godan yahay mafcuul bihina weligi wuu kor dhigan yahay alkaslaana mafcuulu bihi mansuuba wcalaamatu nasbihi fatxaة ظaahiraة fي aakhirih calaamadda lagu kor dhigay waa fatxada aakhirka ka muuqda falismu